Qofkan aad arkayso ee la wado hadda wuxuu ahaa sida adiga oo kale, wuxuu soo maray qosol iyo qaraabo booqasho, laakiin hadda waa mid la wado. Waxaa loo xiray dhar cad, waxaana loo qaaday meel aan isagu tegin weligii, waana goobta meydka lagu dhaqo. Qolka meydka lagu dhaqo waa meesha ugu argagax badan ee aad weligaa gasho. Waxaa la garaacay albaabkii guriga uu ku jiray meydka, waxaa laga qaaday sariirtii uu saarnaa, waxaana loo qaaday meel dadku ka ooyaan laakiin isagu uusan maqlaynin, meel laga murugoodo laakiin uusan ka hadlin. Waa goobtii meydka lagu dhaqayay ee goob aan la jeclayn in marna lagu nagaado. Goobta meydka lagu dhaqayo ma ahan cisbitaal, mana ahan masjid, waa meel cidlo ah, qabow ah oo khushuuc iyo aamusnaan badan, oo dadka badankooduna ka baqaan inay xitaa eegaan. Waxaa yaala weel weyn oo biyo qabow ku jira, laakiin qabowgaasi ma ahan kuwa aad subaxii wejiga ku dhaqato. Waa meel lagu mayro dembiyo, lagu dhaqo camal, laguna nadiifiyo qofkii noloshiisa dhammaato. La yaab ma lahan inaad oydo xilligaas, waayo isagoo dhintay ayaa wejigiisii la dhaqayaa, laakiin waxaa dhacda in wejigaasi isbedelo. Mid ayaa wejigiisii nuur noqonaya, midka kalena madow iyo qallo ayaa ka muuqda. Waxaa jira meyd jirkiisu dhagax noqdo, dhaqdadii u timaadana ay ku dhibtoodaan. Meyd aan biyuhu qabanayn, mar kastana biyaha dusha sare ay ka maraan, sidii inuu diidan yahayba in la dhaqo. Waxaa jira qof meydkiisa si xun u uraya oo dadka ka fog ay xitaa ka xijaabtaan. Waxaa jira xilli meydkii aamusnaa uu bilaabo inuu cuslaado. Wuxuu yaalay isagoo aamusnaa, wejigiisuna xasilloonaa, balse markii la damcay in la qaado, meydkii wuxuu bilaabay inuu cuslaado. Cid walba way argagaxday. Meydkaasi wuxuu noqday mid cabsi ku reebay qof walba oo goobta joogay. Meyd barafka ka qabow, laakiin culayskiisu isbedelay. Meyd marka laga soo qaadayay guriga ahaa mid fudud oo 2 nin kor u qaadi karta si fudud, laakiin markii la keenay goobtii dhaqidda oo biyihii lagu shubay, uu noqday sida dhagax, culayskiisu 2 jibaarmay oo 3 jibaarmay. Wuxuu noqday sida mid aan rabin in la dhaqo. Qof walbana uu dareemay culays ziyaado ah. Raggii kor u qaadayayna ay dhaheen, maxaa dhacay? Gacmihiisu way adkaadeen, dhabarkiisuna ma jilicsana. Balse maxaa sabab u ah inuu meydka cuslaado? Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, qofka dhintay isagoo camal xun wata, meydkiisa waxaa laga dareemaa culays iyo diidmo. Waxaa dhacda in nafta ay ka cararto dhaqidda iyo meydka laga dareemo qallafsanaan, adkaansho iyo ur aan caadi ahayn. Mararka qaar meydka la dhaqayo ayaa bilaaba in uu diido in qayb ka mid ah jirkiisa la taabto. Calaamadaha argagaxa leh ee lagu garto meydka cuslaada: meydkii oo aan leexan marka la rogayo, wuxuuna noqdaa wax u eg sida dhagaxa, dadka dhaqana ay ku dhibtoodaan. Qofka oo dhinta isagoo wejigiisa qalloocsan yahay, malaa'igta waxay yimaadaan inta meydka la dhaqayo. Haddii uu yahay qof wanaagsan, kor ayay kala socdaan meydka, wayna u ducaynayaan. Dad badan oo meyd dhaqdo ah ayaa sheegay in mararka qaar ay maqlaan qaylo ama gariir ka guuxaya gudaha hoose ee jirka meydka. Haddiise aad rabto meydkaagu inuusan ku cuslaan kuwa dhaqaya, hadda noloshaada hagaaji oo ku xir daacada Alle Casa wa Jalla. Haddii aad rabto inaad ogaato meesha ugu daran ee la geyn doono jirkaaga, tag goobta meydka lagu dhaqayo oo ku sawir naftaada oo ku jirta kafan, jirkaaga oo la rogayo, biyaha qabowna lagu shubayo, wejigaagana la dhaqayo adiga oo aan hadli karin oo xitaa ishaada ka leexsan karin biyaha ku dhacaya. Markan naftaadii way tagtay oo jirkaagii baa haray maanta. Markanna waa kafankii caddaa ee nolosha. Ma og tahay in dharka kafanka uu yahay dharka ugu dambeeya ee lagugu duubi doono? Waa dhar aan la dooran, midabkiisuna yahay mid keliya, qaabkiisuna waa mid dareengelinaya ruux walba oo nool. Waa dhar aan lahayn jaab, aan lahayn qurux, aan lahayn midabyo, balse ah kii lagugu qaadi lahaa safarkaagii ugu dambeeyey ee aakhiro. Kafanku waa dharka meydka loogu talagalay, dhar cad, saafi ah oo nadiif ah, laakiin nadiifnimadiisu ma ahan qurux ee waa calaamad murugo iyo argagax leh. Waa bilowga aamusnaanta qabriga, dhar aan la diidi karin. Ma jiro qof ka baxsan doona, ma jiro qof dhahaya ma rabo. Waa lagugu duubi oo lagugu duubi doonaa, haddii aad boqor tahay ama faqiir tahayba. Kafanka ma ahan oo keliya dhar ee waa bilowga kitaabkaaga aakhiro. Kafanku wuxuu noqon karaa maro iftiin iyo barako leh, ama maro ciqaab iyo mugdi la socda. Marka lagugu duubo kafanka, waxaa kaa jarmaya dhammaan xiriirkii nolosha. Kadib waxaa lagu xiri doonaa suunkii aakhiro oo isna ka samaysan qayb kafanka ka mid ah. Waxaa lagaa qaadaa gurigii aad jeclayd oo laguguna celin maayo weligaaga. Marka lagugu qaado garbaha dadku waa kuwo ooyaya ama yaaban. Qaarna waxay isweydiinayaan sidee ayuu u dhintay? Waxaan ogaa isagoo caafimaad qaba. Kafanka ayaa lagugu duubay adigoon ogeyn, adigoon diyaar u ahayn. Waxaad ahayd qof qoslaya shalay, balse maanta dhar aamusan ayaa lagu xiray. Kafankaagu ma noqon doonaa mid iftiin leh mise mid qiiq iyo mugdi ka baxaya? Ma og tahay in marada kafanka
halka ay noqon karto warqadda lagugu guddoonsiin doono jannada. Kafanka waa hadiyadda ugu dambaysa ee adduunyadu ku siiso. Ma jiro qof kula gala maradaasi, ma jiro nooc iyo midab doorasho, fashion iyo mid casri ah. Kafantaasi waxay noqon doontaa saaxiibka keliya ee lagula aasi doono. Wuxuu ahaa nin la yaqaan, meel kasta lagu casuumo, laakiin maanta kafan cad mooye cid kale lama socoto. haatanna waa socdaalkaagii kuugu dambeeyey. Qofkii la dhaqay wuxuu ku aadan yahay qabriga. Kaasi waa qofkii weligiis dhoola caddayn jiray, balse hadda wuu aamusay, waa la dhaqay, waa la kafanay, waxaana lagu riday naxash sariirtii safarkiisii ugu naxdinta badnaa ee ku aadanaa qabriga. Waa safar kelinimo leh oo ruux kastana uu marayo. Naxashku ma ahan sariir qurux badan oo la saaro waxyaabo qaali ah, waa sariir lagu raro jir laga qaaday naftiisii. Waxaa lagu ridaa oo la saaraa naxashkaasi meyd la dhaqay oo lagu duubay kafan, waxaana lagaaga xirayaa xagga madaxa, xagga lugaha iyo dhexda si aadan u dhicin. Kadib dabool ayaa la saaray oo iftiinkiina waa uu kaa go'ay. Dadka bannaanka taagan qaarna way ooyaan, qaarna weli way aamini la'yihiin inaad dhimatay. Waxaa lagaa raray gurigii aad jiiftay, laguna qaadayaa xagga masjidka iyo salaadii janaasada. Marka meydka la qaado wuxuu oranayaa igaarsiiya igaarsiiya, laakiin dadku wax ma maqlaayaan xilligaas. Haddii uu meydku ahaa mid camal wanaagsan, naxashku wuxuu noqdaa raaxo, iftiin iyo raxmad alle, waxaana la dareemaa neecawda qabow iyo udgoon badan. Laakiin haddii uu yahay midka camalkiisu xumaa, waa lidkeedii iyo shalayto iyo murugada cadaabta ka horaysa. Laakiin meydku wuxuu u aamusan yahay sidii inuusan ogeyn meesha loo wado. Waxaa la geynayaa dhul qabow oo mugdi badan, waa la dejinayaa, naxashkii ayaa la furaa, wejigaagii baa laga saaraa dharka, waxaa laga jeexaa marada dhabarka hoose si dhulka uu kuu qabto. Kadibna caro ayaa kugu da'aysa iyo ciid si tartiib ah, laakiin aan lahayn rajo kale. Dhulkii aad ku dul socon jirtay hadda wuxuu noqday sariirtaadii kuugu dambaysay. Qofkii shalay agtaada fadhiyey maanta wuxuu kugu ridayaa carada iyo busta ciidda. Qof walba wuu tagayaa, carruurtii, asxaabtii, ehelkii iyo aabbena waa kuwaas oo kaa sii socda, iyagoo ka aamusay oo joojiyey oohintii. Naxashkii xitaa way qaateen, laakiin adigii baa haray iyo camalkaagii. Kadib marka dadku tagaan waxaa kuu imaanaya laba malag, mid u madow sida mugdiga gudcurka habeenka iyo mid ruxaya oo wada su'aalo aan laga boodi karin. Waxaa la bilaabayaa su'aalo, haddii jawaabahaagu sax noqdaan qabrigu wuxuu isu beddelaa beer ka mid ah beeraha jannada. Haddiise aad ku guuldaraysato, qabriga ayaa ciriiri noqonaya, lagugu cadaadinaya ilaa la jabiyo lafba lafta u dhow. Naxashku ma ahan sariir lagu seexdo hurdo macaan, ee waa furaha qabriga, waana albaabka aakhiro. Intaadan lagu saarinse hubso maanta inaad leedahay camal kuu iftiiminaya qabriga dhexdiisa. Allow naga yeel kuwa loo dhaqo meydkooda si fudud, wejiyadooduna iftiin ka muuqdo, kafankooduna carfaya oo xasuusta salaada iyo soonkoodana ilaaliya. Hana naga yeelin kuwa meydkooda lagu dhaqo iyadoo ay ooyayaan xitaa kuwa dhaqaya. intaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago. magacaygu waa Yaasiin. haddii aad ka heshay muuqaalka nagu soo biir. hada wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.